طبعا oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad naga daawanaysaan amaba aad nagala socotaan sida aad daawadayaal la socotaan waxaa dhawaan magaalada London lagu qabtay shirweyne ballaaran oo arrimaha Soomaaliya lagu gorfeynayay shirkaasi oo lagu qabtay London ayaa waxaa la soo gabagabeeyay bishan aynu ku jirnaa haatan February 23keedii istuudiyaha maanta waxaa marti noogu ah Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo isagu hormood ka ah jaamacadda ama cluster la yiraahdo ee gobolka Minnesota ee wadankan Mareykanka waxaana uu Ahmed Ismaaciil Samatar uu bartay siyaasadda iyo dhaqaalaha adduunka dhinaca kale marka la eego Ahmed Ismaaciil Samatar waa nin inta badan u heelan kana hadla arrimaha Soomaaliya iyo isbedelada inta badan ku dhaca siyaasadda dhinaca Soomaaliya marka hore Professor Ahmed Ismaaciil Samatar soo dhaw mahadsanid walaal sidii horeba aan u sheegay shirka London ayaynu iska wareysan doonaa waxaabihii ka soo baxay iyo bal sida uu u saameyn doono dadka Soomaalida inta su'aalaha inta aynan u galin inta ugu muhiimsan bal horta waxaad ii sheegtaa maxaa loo sameeyay shirkaas shirka waxa loo sameeyay sida de warka adduunyada loogu baaqay Soomaaliya oo goboladu hays dhaamaan degmooyinkuna hays dhaamaan laakiin guud ahaan aad iyo aad adduunyada ay uga daashay dhibaatadeedii amba macaluul iyo gaajo dadka intooda badan haysata boqolkiiba 50 in ku dhow haysata oo abaarihii ugu dambeeyeen ay aad dadkii u sii jilciyeen ha noqoto foolxumo caynkaas oo adduunyadu ay ka yaayaqsoonayso waa kow waxa kale oo la iskugu yeeray bal in mar dambe in dawladda iyo dadka Soomaalidu ay isku yimaadaan oo ummadani ay meel gooniya oo hagaagsan u baxdo bal in mar dambana la isku dayo laakiin waxa laga yaabaa inay tahay markii ugu dambeysay ee adduunyadu sida ay u soo gasho waa tahay yaa ka qayb galay waxa ka qayb galay wadamo badan oo adduunyada ayaa la iskugu yeeray oo ilaa 50 ku dhow waxa ka qayb gashay jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa dadka Soomaalidana dad baa looga yeeray oo looma dhamayn laakiin waxa weeye dawladda ku meel gaarka wafti baa ka socday oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay ku jireen baarlamaanka ninka madaxda wali u ah sida dadka badankiisu ay haystaan uu ku jiro dawladda ku meel gaarka TFG dadka socda waxa Puntland gobolka la yiraahdo dad madaxa oo ka socda galmudug dad ka socda ayaa iyaguna yimid al-sunna wal jamaa koox la yiraahdo ayaa dad ka yimaadeen gobolka Somaliland ee goonida u baxay dad madaxa oo ka socda ayaa yimid marka waa la badnaa laakiin haddana de Soomaaliya umay dhamayn marka leedahay umay dhamayn oo kale yaa tabaysaa leedahay cidaas ka maqnayd de waxa ka maqnaa dad eegto dadkii aqoon-yahanka way ka maqnaayeen intoodii badnayd dadkii baayac mushtariga ahaa waaweynaa way ka maqnaayeen culimaa diinkii waaweynaa way ka maqnaayeen dumarkii aqoonta lahaa way ka maqnaayeen inta warku igu soo gaaray dhalinyaradii jaamacadaha ku jiray ee arinta Soomaalida aad iyo aad ugu hameeyay way ka maqnaayeen marka de malaha waqti dambe ayaa kuwaas ay soo gali doonaan baan filayaa Professor Ahmed Ismaaciil Samatar hadaan su'aal kale ku weydiiyo shirku uu magac weynaa wuxuu ahaa mid aad lagu rajo weynaa in uu midho dhalo oo wax weyn ay ka soo baxeen haddana marka si loo eego waqtigiisu aad buu u koobnaa maxaa leedahay ayaa waqtiga loo gaabiyay oo muddo dheer loo gali waayay falanqeyn aniga qudheedu aad baan u la yaabay in 6 saacadood wax oo dhamiba ay noqdaan waa wax la yaabo weeye waliba London in lagu qabto anigu waan la yaabay waayo shirar badan baa lagu qabtay oo intooda badan in fact dhamaantoodba waxa waaweyn shirarka waaweyn ee la sheegayo ka badan dhowr iyo 10 wadanka dibadiisa lagu qabtay marka in wadanka gudihiisa lagu qabto haduu yahay shirkii ugu dambeeyay ee adduunyada iskugu imanaysay ayaa ahayd taasina taa way suurto gali kari weeyday marka anigu waxaan qabaa in laga soo shaqeeyay oo hoosta laga soo sheekaystay marka 60 saacadood ay ahayd in la shaabadeeyo wixii hore loogu soo heshiiyay hoosta laga soo shaqeeyay waa tahay maxaa sileeda baa ka soo baxay muxuu midho dhalay sad horta danta Soomaalida iyo danta adduunyadu waa tahay labadaas ay is ag yaacaya wadamada maanta Ingiriisku oo hor socdo ee shirkan qabtay oo Mareykanku uu ku jiro dawladaha Yurub ee EU-da ay ku jirto jamciyadda quruumaha ay ku dhaxaysa ay ku jirto adduunyadaas danbay leedahay inaguna danbaynu leenahay hadaynu Soomaalinahay labaduna had iyo jeer aad iskuma guda galaan wadamada adduunyadu
khaasatan Europe iyo Maraykan iyo jamciyadda quruumaha ka dhaxaysay wadamadaas xitaa Shiinaha iyo Japanese iyo wadamadaas iyaga saddex amuurood baa u daran oo waliba sida u kala horeeya kow waxa weeye burcadbadeedan in wax laga qabto oo wadankan Ingiriiska kambaniyada waaweyn ee insurance ka sameeya khasaaro weyn baa ka soo gaaray mar haddii xeebtii ay noqotay meel burcad ay ka dilaacday oo maraakiibtii xoolaha sidii waa in cashuurtii baa kor u kacday marka Ingiriiska halka dan gooni ah oo dhab ah ayaa kaga jirta taasi waa xeebtii waxa soo raacda oo ugu xigta adduunyada kale waxa weeye dadkii Soomaaliyeed ee la yiri argagixisay qaarkood noqdeen amba diin islaam oo si kale u fasirteen ha noqoto amba dana kale ha wataan laakiin wax argagixisay xil la yiraaho oo had iyo jeer dhiigdaad isku socoto oo laga yaabo inay ku soo qaraxdo wadamadan kale amba Mareykanka ha noqoto amba Ingiriiska ha noqoto amba meelaha kale ee Soomaalidu ay soo degtay ha noqotee taasina waa talabaad waa argagixisadii ta saddexaadna waxa weeye dad Soomaaliyeed oo maxaan ku rahay fulxumadoodii meel laga joogsada adduunyada la laayahay oo gaajo iyo abaar iyo haraad iyo cudur iskugu biiray oo aad u baabay boqolkiiba 50 in ku dhow baa laga hadlaya dadka Soomaalidu macaluulay inay hayso maalin walba jaraa'idka iyo telefishinka adduunyada ayaa laga soo saaraya marka dad badan baa ka qaraqmay oo adduunyada kale ah oo doonaya inay wax ka qabtaan oo adkeysan karin saddexda ay weeyii wadamada adduunyada inaka danteenu iyo teenuse saddexdaasi way jiraan oo inaka waa danteena laakiin teenu inta way ka weynta waxa weeyii teenu waxa weeyii afar amuurood afarta amuurood saddex waa gudaha midna waa dibadda saddexda guduhu waxa weeyii iyadoo oo wixii qoomiyad la oran jiray ee isku keen haysay ee Soomaalinimo iyo Islaamnimo isku keen haysay dhaawac weyn uu gaaray dadka qaarkiina ay kula yihiin way baabaaday ummadina haddii halka jiriddu sida ay uga qurunto caleemaha iyo laamuhu ma hagaagsanaanayaan taasi waa kow qoomiyadii talabaadi waxa weeye wixii dawlad la oran jiray oo xukuumadda state waxa la yiraahdo oo centerka uu yahay maxaan ku rahay halbowlaha uu yahay xafiisyadii dawladeed ee Soomaaliyeed ee state-ka la yiraahdo taasuna la baabiyo oo wax allaaliyo maanta karti ay leedahay meel ay ka muuqataa ay jirto haddii meel ay ku magacaabantaana waa qolof waxba aanay ku dhex jirin oo madhan ta saddexaadna waxa weeye wixii la oran jiray hoggaan ee Soomaaliyeed hoggaan Soomaaliyeedna maanta meel loo raaco oo ay qiimo ku leedahay ka muuqato ay tala ka goynayso ay karti ku leedahay taasuna ma jirto maanta oo 20 sanadood ee ugu dambeeyay waliba dawladdii Maxamed Siyaad Barre 10 sanadood ee ugu dambeeyay dabayaaqadeedii soo qudmaysay ilaa 20 sanadood ee ka dambeeyay 30 sanadood wax hoggaan la yiraahdo Soomaaliya oo xalaala oo wadan hawshii qabta lama hayo taasina waa ta saddexaad saddexda waxay noo soo raacay wadamada adduunyada ama daris ha noqdaan amba kuwa shisheeye ha noqdaan ilaa Uganda wadamada adduunyada oo Soomaaliya kolba kubad ka dhigta siday doonaan ay ugu ciyaaraan ilaa cid iska celisa oo la xisaabtantaa ma jirto oo maanta waadiga ogo wadanka Itoobiya ciidamadeedu waa kuwa soo galay baydhabay qabsadeen baa la yiri habeen hore soo damaadka dawladda Kenya ciidamadeedu way ku jiraan wadanka waa cadaan marka sidaas ayaa adduunyada kubad aynu ugu noqonay inaka saddexda amuurood ee gudaha iyo xabada dibadda ayayna haysta marka labadaas sida la iskugu keenayo danta wadamada kale ay leeyihiin iyo kuweena shirkaasi hadduu dhalinayo sida la iskugu keenayo guul looga keenayo intaba waa khayr haddii kalena waa khasaare cusub marka labada danood ma laba danood aad u kala fog baa mise waa la isku soo dhaweyn karo haddii laga shaqeeyo in waa la isku soo dhaweyn karaa oo danba inoogu jirta nabadgelyada xeebteena danba inoogu jirta wadanka gudihiisa inay nabadgelyo ka dhacdo aynaa noqon dad diigooga uun daadiya wadamada kana galaafta laakiin sida la iskugu soo dhaweynaya xarfad gooniya ayay u baahan tahay xarfadaana waxa keeni kara uun dad Soomaaliyeed oo xalaala oo karti leh oo ummaduna u soo joogsato waayahay isla shirkii London baan wali su'aalaheedii ku weydiinaya Axmedow waxa ka dhex muuqday madaxda Somaliland sidaad la socotid ama aan ognahay waxay hore u sheegeen in ay iyagu markaasi gooni u istaageen inkastoo aanay caalamku ictiraafin shirarka Soomaalidana inta badan kama qayb gali jirin si toos ah shirkan si toos ah ayuu u fadhiyeen maxaa isbedelay ma Somaliland baa soo dabacday ma caalamkii kala dhiga adeegay oo akhsbay sidoo u jiraan waa su'aal aad iyo aad u qiimo weyn weeyi warku sidoo nagu soo gaaray anigu shirka gudihiisa maan fadhiin casuumadda markii la bixiyay maan dhageysan waxay ku timid laakiin warkana soo gaaray oo xogogaalahi waxa uu leeyahay madaxda Somaliland waxay u yimaadeen iyagu
ma aha iyaga oo ka qayb galaya ummadda Soomaalida ee danteeda sida loo soo ururinayo oo loo soo hagaajinayo midnimadii Soomaalida oo iyagu waxay yiraahdaan anagu waanu bari horaanu goosanay inaanu dawlad gooniyo ummad gooniyo noqono laakiin waxay u yimaadeen sida warka nagu soo gaadhayo de arrimaha xeebaha ku saabsan iyo nabadgelyada in laga wada hadlo oo ay qayb ku yeeshaan laakiin haddana waa anigu arrin qiimo leh weeye in shirka madaxdii Soomaaliland yimaadaan gubaabaduna waxa weeye ururkan Soomaaliyeed ee jamhuuriyadda ee unionka 1960 dadkii abuuray waa laba gobol bay noohayn Somaliland Protectorate iyo Italian Somalia labadaasay noohayn laba Soomaaliyeed oo laba ajnabi ay kala haysteen ayaa abuuray waxa la yiraahdo isku tagii iyo unionkii ummadda Soomaalida July 1st 1960 anu waxaan qabaa haddii la soo nooleynayo isku midnimadii Soomaalida iyo jamhuuriyaddii haddii la soo nooleynayo oo unionkii la soo nooleynayo labadaas inay si gooniya u sheekaystaan waa laga maarmaan aniga ima muuqato inay hagaagayso in la yiraaho waxa la yahay 25 gobol amba 30 gobol baa la yiraahay hal iskugu yimaado waxa laga wada hadlo waxaan qabaa halkaasi taasoo inaanay xaq ahayn taariikhdana inaanay ku haboonayn taariikhda dhabtii waxa weeye jamhuuriyadda Soomaalida laba wadan oo Soomaaliya ayaa abuuray British Somaliland iyo Italian Somaliland labada dad madaxa oo ka wakiila oo karti leh oo dhulkooga iyo degmada ay ka imanayaan loo yaqaano inay yihiin dad run ah ya oo ka wakiila dadkaas inay iyagu isku yimaadaan oo dib ay ugu riyoodaan uga wada hadlaan sida loo soo dhisayo union cusub oo xaq ku dhisan oo qawaaniin ku dhisan oo jacayl cusub ku dhisan oo karti ku dhisan taa baa lagu soo hagaajin karaa bay ila tahay arrintii unionka Somalilandna taa ayuun bay ku soo noqon kartaa aniga sida ila tahay laakiin haddii lagu yiraahdo Somaliland waxa tiin gobol kamida 30 gobol ee la kala sheeganayo u malayn maayo dadka Somaliland iyo madaxdoodu inay ogolaanayaan de xaqna baa habay ay lama aha aniga inay xaq tahay waatay sidaan la socono dhawaanaha waxaa soo badanayay iyaguna gobolada Soomaaliya oo si kala qaybsamayay oo isteediyo iyo magacyo kala duwan la baxay sidee baad u aragtaa in Soomaaliya xilligan lagu jiro iyadoo central government aanay jirin in ay maanta u kala baxbaxaan gobollo magacyo kala duwan iyo maamulo kala duwan leh sidee kula muuqataa horta dimuqraadinimadu de inay noqoto wax dhulka saaran oo dadku ay dandamin karaan maalin walbana ay arki karaan maalin walbana ay taaban karaan waa laga maarmaan amba qofku ha joogo gaalkacayo amba ha joogo Buuhoodle amba Saylac iyo Hargeysa ha joogo amba Jamaama iyo Jowhar iyo ha joogo Kismaayo iyo Boolaburda ha joogo iyo Burhakaba in qofka Soomaaliga uu dandamiyo dimuqraadinimada oo ay agtaalo kuna dhaqmi karo laguna xukumo waa laga maarmaan taasi markaa waxay dhigaysaa in halka hoose dimuqraadinimadii la dhigo oo dadku ay ogaadaan oo leeyihiin laakiin tii sarana dimuqraadinimadii inay dhisto way haddana inta sare jirin oo aqalkani haddana lahayn saqaf de roobka iyo waxalba way soo galeen marka dambe waa la baabi marka labadaas sida la iskugu xidhayo way anigu ma qabo sida la iskugu xidhaya labada inay tahay xaafado liba intay gooni u baxdo oo wax yar samaysato amba dad yar intay isku yimaadaan ay yiraahdaan anaguna gobol caynkaas la yiraahdo oo imika la sii marayo 30 in ku dhow waa sarifkii 4.5 ee habaarka ahaa ee halka ina keenay oo la sii wadayo nooc kale iyo shaar kale loo geliyo buu noqonaya marka anigu ima muuqato taas inay tahay mid lagu dhisi karo Soomaaliya soo noqdo shirkii la hadal marka dib ugu noqdo waxa jiray shirar arrimo fara badan oo danta Soomaaliya laga hadlayay lagu qabtay maamul goboleedka Puntland magaalada Garowe shirarka Garowe ka socday iyo shirka London lagu soo gabagabay bishan 23 Ahmed wax xiriir miyay leeyihiin oo masku xidhay way leeyihiin shirkan London arrimihii ka soo baxayna waxa kamida iyadoo la leeyahay loo adkaynayo road map wadadii la marayay ee lagu dejiyay Garowe Garowe labaad wadada lagu sameeyay in la maro ayuu shirkan ka soo baxay London go'aankiisuna taageeraya marka Garowe waxa weeye wixii ka soo baxay hadday noqonayso de wada dhaba oo la maro iyaduna in la xalaaleeyo ayay u baahan tahay oo la dhabeeyo maxaa kamid ah marka arrimaha lagu xalaaleynayo de 4.5 waa inaan lagu dhaqmin 4.5 aan ku celiye waxa weeye habaarka maanta halka ay keenay adduunyada inaga dhigay dadkii ugu liitay waa 4.5 taa waa in laga baxaa oo shirka aanay u noqon
ya farsamada lagu maamulayo Waa ta labaad waxa weeye shirka garowa anigu waxaan ku taliyey de 1,000 qof ha loo yeedho oo 1,000 qof deetana iyagu ha noqdaan constituent assembly dabadeetana halkaasi doorashadeedii la galo baarlamaan iyo madaxweynihii iyo howlaheegii la galo waa 1,000 qof anigu waxay la tahay waynu soo aragnay badi waxba ma tarto 550 qof baa baarlamaanka imika ku jira waxa laaliya waxay qabteen iyo meel ay ka soo qabtaana ma jirto dowladda markaynu ahaan jirnay intaan militarigu qabsan 100 iyo waxaynu ahayn 25 baarlamaanku wax badan bay qabteen maxay noo diiday inaynu waxa intaynu soo yareyno 150 qof oo Soomaaliya oo la soo xulay oo la yaqaano oo taariikh wadanka ku leh oo karti ah oo maxaan ku raahayay ka soo bixi kara hawlaha maxay noo diiday in la soo saaro iyaga markaa gudahooga ya halka ay ka soo baxaan dee doorashada iyo waxa la sameeyo waxaan uga jeedaa waxaas oo dhan waxa weey haddii ay noqotay in 100,000 qof laga soo saaro dadkii Soomaalida ama baarlamaanka dadka imika ku jira oo 4.5 ay u noqoto dee wadadii la marayay wayna kharibaysaa bay aniga ilata waxaan u khatar u galeynaa xukun xumada iyo hoggaan xumada maanta ina haysata iyo karti darrada ina haysata in shaar cusub loo soo geliyo ya oo ay dib inoogu soo noqoto hadday taasu soo noqotana anu waxaan qabaa waa habaan mansuura waa halkii ugu dambeysay way marka garawa way riman tahay laakiin de inay wax dhaba dhasho iyo inay bakti dhasho labadaas hor yaala waa tahay muqdisho kale hadaan tagno sidaan hore ula soconay ama inuu maqalay kooxdii al-shabaab waa laga saaray waxa magaalada muqdisho ka jira in guriyihii wasaaradihii dawladdu ay lahayd iyo hantidii dawladda lagu wareejinayo xukuumadda imika ku meel gaarka dawladaha ay ka mid tahay Turkiga oo kale waxa moodaa inay dadaal horumarineed ay ka wadaan isla muqdisho adiga ka Ahmed ahaan ka aqoon-yahan ahaan maxaa ku bidhaamaya muqdisho oo kale markaad eegtid anu de muqdisho waan tagay waa tahay muddo imika waxaan biliya barka ahayn ayaan ka sokeeyay waan tagay maxaa ku soo baxay waxa ii soo baxay waan ka waramay waxa ii soo baxay horta de magaaladii caasimadda wadanka Soomaalida oo ahayd oo hadday ugu yartahay maliyuun iyo bar qof ay ku nool yihiin waa meel aan waxaan ku qiyaasay sidii wax garneyl sida loogu dhacay ayaad moodaysaa oo 90% wixii guriya ahaa amba xafiisya ahaa amba wadooyin ahaa ee maalkii ummadda Soomaalida uu galay xoolaheeni ay galeen oo burbur wada noqday oo aad moodayso war meeshan macadow baa isku laayay baad oranaysaa dadka waxaan isku laayay san u baabiyay miyaana in dan kala hayn ummadda Soomaalida mustaqbalkeega aad oranaysaa haddana waxaan soo aragnay waliba dad Soomaaliyeed oo magaalada ku nool oo macaluushu ay ka muuqato cudurku uu ka muuqdo haddana de grifgrifta hayo dadaalaya waxaan soo aragnay dhalinyaro badan oo Soomaaliya oo aanu jaamacadan ka hadlay oo wajigooga iyo dadaalkooga iyo hamadooda aad iyo aad ugu farxayso oo rajay ku gelinayaan iyo dad waaweyn iyo dad Soomaaliya oo caankana waan la kulanay oo rajay ku gelinay marka magaaladii Muqdisho waxay u baahan tahay hawl weyn oo laga qabto dib loo dhiso magaalada wadooyinkayga leertriga biyaha daaraha dib in loo dhiso ana waxaan ku qiyaasay haday ugu yaraato ya 500 milyan oo dollar haday ugu yaraato inay magaaladaas u baahan tahay inay noqoto de meel la iskugu yimaado oo u qalanta inay xarun Soomaaliyeed noqoto hore dhaqaale caynkaas oo kale aan moogu baaqday Axmedow in haddii dawladda Soomaaliyeed ay timaado oo ay markaasi hagaagto oo dib u soo noqoto Soomaaliya in dhaqaale fara badan oo billions dollars in lagu bixiyo dawladda Soomaaliya anigu de waxaan sameynay wax qiyaas ah oo walay weydiiyay aniga dawladuhu way weydiiyeen haddii dawlad dhab ah oo karti leh oo 4.5 ka baxday haddii oo Soomaali oo la helo oo xalaal ah maxaa u baahan tahay ummadda Soomaalidu in lagu soo dhiso ana waxaan muddo 7 ilaa 10 sanadood amba 5 ilaa 10 sanadood inta u dhaxaysa sanad walba in la geliyo ugu yaraan billion dollar amba billion iyo nus dollar in la geliyo waa 1 milyan oo dollar ugu yaraan in la geliyo sanadkii oo lagu kabo waxay Soomaali leedahay amba cashuur ha ku noqoto amba wax dibadda dadka Soomaalidu ay ka soo diraan ha noqoto wixii kayd ee dadka Soomaalidu ay leeyihiin lagu kabo taa haddii la helo de marka waxaanu degdeg u helinaa oo farsamadeedana laga aad loo ilaaliyo oo dusha laga joogo si aanay u gelin musuqmaasuq aan u gelin de wadooyinkii baa la soo dhisay maaha un Muqdisho de wadanka oo dhan wadooyinkii portski airportski biyaha si cudurku inooga yaraado in la gaarsiiyo electricity beerihi kalluunkii warshadihii iskuuladii hospitaaladii hawlahaas la geli hawlaha hadii la galana shaqa furmi baayac mushtarigii Soomaalida ayaa ka noolaan oo shaqo ka samaysan dadkii bay shaqo ka siin ummadiina way soo noolaan
marka xoolo adduunyada ay geliso aad iyo aad u gundheer iyo ummadda soomaalida oo la timaada hoggaan iyo vision cusub oo ka duwan wixii na soo maray 20kii sanadood ee ugu dambeeyay amba 30kii sanadood ugu dambeeyay labada hadii la isku helo waan dhaqaaqi karnaa dalalka reer galbeedku waxay haatan nagula talinayaan in laga baxo marxaladan lagu jiro ee la yiraahdo kumeel gaadhka in loo gudbo dawlad markaasi isu dhan oo dhexe si cadaalad iyo sinaan ay ku jirtana doorashooyin loo sameeyo xilligan marka lagu jiro oo weli ay muuqato in madmadow iyo shaki uu jiro maslada axmed oo si dhaqsaa bisha August hadii ay dhamaato xilligii dawladda imika shaqeynaysa ay soo gabagaboobay wax loo gudbi karaa marxaladaas aan kumeel gaadhka ahayn ee tooska waa loo gudbi karaa sidee waa loo gudbi karaayo waxay noqon kartaa markiiba de goolka lama dhalin karo ya oo de kubaduba waxa weeye saacad iyo bad in ku dhow way ku bedel la fahanteen ummad ismaheeg iyo baabuurka la soo malmalayo inade ka waqti dheer laakiin waxay noqon kartaa talaabadii ugu horeysay salaanka dheer ee la fuulayo ya isbedelka inaynu markaa August galno waqti cusub oo leadership cusub hoggaan cusub inaga soo baxo oo aan ahayn maxaan ku rahay biyihii hore oo quraarad cusub lagu soo shubay aan ahayn waa lagama maarmaan waa bilaygo halkii ka bilaabmayso in baarlamaan intii ka yar oo karti leh laynaga helo waa lagama maarmaan oo waa wadada la maraya ee salaanka jaranjarada dheer ee la marayo in distoor loo habeeyo ummadda Soomaalidu ay hadhow ka qayb gasho inay cod ka dhiibato dhab yahay ya oo lagu heshiiyo qarannimada sida ay u ekaanayso iyo dawladdu u ekaanayso taana in laga shaqeeyo waa lagama maarmaan oo wadadaas ay noo furfuraysaa marka waxyaabo badan oo caynkaas ah ayaan samaysan karnaa oo noqda jidka bilowga dheer ee lagu gelayo wadankii oo dega inakoo jacaylkeennii aynu isku qabnay soo noqdo ya dee khasaarihii aynu ka baxno adduunyadana sharafkii aynu ku lahayn aynu ka helno waaye dad badan baa yidhahda waxaa Soomaaliya ka jira faragelin dawladaha shisheeye ay ku hayaan dawladahaasi qaarkood waa dawlad ay jaar yihiin Soomaaliya faragelinta dadka ama dawladaha shisheeye xoog intee la eg ama saameyn intee la eg bay ku leedahay Soomaaliya shaki kuma jiro taariikhda Soomaalida oo dhan 150kii sanadood ugu dambeeyay in faraha laynagula jiray shaki kuma jiro oo de gumaysigu waxa weeye fara kula jirka ugu weyn weey ayna kala qaybiyay ee shanta inaga dhigay laakiin maantana de wadamada adduunyadu danbay ka leeyihiin watan ku sheegay wadamada darisku danbay ka leeyihiin maxay dantoodu kamid tahay de waxa Kenya iyo Ethiopia for example labada hadda soo qaato waa labada waaweyn waayo Djibouti de waa wadan intiisa badan ay Soomaali tahay dadka madaxdii ay Soomaali yihiin danta Soomaalidana ay si wanaagsan u ilaaliyaan oo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele aad buu xagga uga mudan yahay oo ku mahadsan yahay laakiin dawladahan Kenya iyo Ethiopia kale iyaga dantoodu waxa weeye hadii la waayay darisnimo la siman yahay oo wax la si wanaagsan wax loo qaybsado oo saaxiibnimo wanaagsan la meesha laakiin la siman yahay oo inagu daciif noqonay hoosta yaala iyagu markaa dantoodu waxay noqonaysaa inay iska ilaaliyaan burcadnimadu inaanay soo gelin Ethiopia iyo Kenya argagixisadu inaanay soo gelin Ethiopia iyo Kenya dhaqaale iyo dan Soomaaliyeed iyo maamulkeegana halka in laga maamulo ayaa iyaga deedani ay ugu jirtaa waayo de Soomaali ismaamulaysa ma jirto marka sida qura ee wadamada aynu dariska nahay heshiis cusub loola samaysanaya waxa weeye horta inaynu dad noqono oo ka soo baxno godka siyaasadeed iyo daciifnimada aynu ka soo baxno haddaynu taa yeelano de miiska ay soo fadhiistaan dad Soomaaliya oo karti u leh ya inay jaska maaragtay xeegada la ciyaarayo ya shaxda la ciyaarayo siyaasadda geeska Afrika ay soo fadhiistaan oo ay fahamsan yihiin xisaabtaasu sida ay tahay marka deetana la soo gaaro oo wadamada dariska aynu nahayna la soo gaarsiiyo iyaga meel saaxiibnimo cusub ayna dhex marto oo dhaqaalaha wax laga wada qabsado nabadgelyada wax laga wada qabsado xagga siyaasadda wax laga wada qabsado xagga dabeecadda iyo climate-ka wax laga wada qabsado oo iyaguna ay baraaraan inakuna aynu baraarno laakiin taa lama helayo hadday daciifnimadeenu sii socoto oo aynu noqono dad aan tirsanayn marka khulbada sidii la doonaa laga yeeliyo waa kuwa maanta ciidamadoodii wadanka ku jira Professor Ahmed Ismaaciil Samatar dad badan oo Soomaaliya Soomaalida waxay tiraahdaa fulay xantii ma mooga dad badan oo Soomaaliya ayaa had iyo jeer yiraahdaa oo farta ku goda aqoon-yahanada Soomaalida si guud Ahmed Ismaaciil oo maanta hor fadhiya kamid baad
meesha ay ka socon laadahay ee ay iska qabsan laadahay inta badan waa dhaliisha iyo ceebaha ay dadka aqoon-yahanadu u soo gudbiyaan waxyaabaha Soomaaliya ka soo baxay ama ka socda ka Axmed ahaan adigu maxaad qabtaa maxaad oran aqoon-yahanada daatiin ummadda Soomaaliyeed maxaad u qabateen maxaad u qaban kartaan maxaad isleedahay horta dee aqoon-yahanada Soomaaliyeed anigu dee magacooga kuma hadli karo oo kuma haboona waa la badan yahay waate laakiin ka Axmed ahaan laakiin aniga waxay la tahay in dhanna dhaliisha waanu ogolnahay dhanna ma ogolin dhan waan ogolnahay oo dee inay aanu soo baxno oo aanu wadanka garbaha qabano annakuna wada socona oon kala qaybsanayn ya amba siyaasadaan isku diidanayn amba 4.5 aan isku diidanayn ya waa dhaliishaas dadku ay nagu fiiqayaan waanu ogolnahay oo weli annakoo wada socona oo sidaa gacanta isku haysana inaanu wadankii soo joogsano oonu garbaha qabano waa taa weli waa la naga sugaya waanu ogolnahay dhaliisha waa tahay laakiin waxaanaan ogolayn in lana yidhaaho canaanta ah dadka waxbartay waa inay iyaguna wadankan dib u hagaajiyaan oo kelidood unba hagaajin karna ma hagaajin karno ummadda Soomaalida iyaduna meesheedii ka maqan musheekhdii waaweyneyd baa meeshoodii ka maqan baayac mushtarigii waaweynaa baa meeshoodii ka maqan dhalinyaradii jaamacadaha ku jiray baa meeshoodii ka maqan dumarkii Soomaaliyeed waxbartay baa meeshoodii ka maqan soo damaad garan dadkii hore ee siyaasiyiintii hore ee kartida lahaa ee lagu tuhmayey inay yihiin dad maskax iyo edeb leh la fahantoodii way daaleen oo way ka maqan yihiin marka waynu wada maqannahay ee la soo wada noqdo waa tahay su'aasha ugu dambaysan ku weydiinaya waxa Axmedow xisbiga heel qaran waa xisbi dhawaan soo baxay oo dardartiisa leh aqoon-yahano fara badan iyo dad fara badan oo Soomaaliya baa ku jira xubin ka mid ah baa tahay isbeddelka haatan ka jira Soomaaliya sidee ula janqaadaysan dee adigii su-aashaada waxaad weydiisatay hore dadka Soomaaliyeed ee waxbartay aqoon-yahankii xaggee ku maqan yihiin dee qaarkayo waana kaa abuurnay xisbiga la yidhaaho heel qaran anigu waataan ku yidhi xamar baan tegey magaaladii baan tegey muddo waxaan bil iyo badh ka badnay baan ka soo noqday waanu u baaqnay ummaddii Soomaaliyeed meel walbana waanu baaqaasi wuu taagan yahay heel qaran ummadda Soomaalida oo dhan buu u furan yahay dhalinyaradii jaamacadaha ku jiray baayac mushtarigii culimaa diinkii waaweynaa dumarkii Soomaaliyeed ee waxbartay ee niyadoodu ay aad iyo aad u caafimaad qabtay waqooyi iyo koonfur bari iyo galbeed Soomaali dibadda kuwa joogiya wadanka jooga way u wada furan tahay waxaanu ku dadaalaynaa haddii aanu heel qarannahay inaanu ka qayb galno dadaalkaa loogu jiro wadanka Soomaaliyeed inuu ka baxo arinta bisha August arrimaha ku soo socda iyo kuwa Kenya August inaanu sidaa ugu jirno inaanu dadaalkeegii kalena ka qayb galno waqtiga cusub ee la furayo ee August ka dambeeya la furayo inaanu hawlaheegii imika ku jirno ummadda Soomaaliyeedna marka waxaan ku leenahay xisbiga heel qaran nala soo gala qaata idinkaale 2 qof iyo 3 qof iyo 20 qof iyo 100 qof ma laha dee sidaasaynu isku ognahay mabdi'iisa dhegaysta waad akhrisan kartaan af Soomaali buu ku qoran yahay meel walba waan ka hadalnaa hadda waxa soo socda shir weyn oo heel qaran la iskugu imanayo magaalada la yidhaaho Hague ee caasimadda u ah wadanka Holland ayaa la iskugu imanayaa bisha March 17 la iskugu imanayaa oo lagaga wada hadlayo arrimo badan ay ka mid tahay waxa sida la iskugu diyaarinayo August iyo wixii ka dambeeya marka heel qaran hawshiisu way bilaabantay mana yara dadkii hana ogaadaan waa hagaag aad iyo aad ayaad mahadsan tahay Professor Axmed Ismaaciil Samatar waa hagaag daawadayaal intaasi ayaanu ku soo koobaynaa waraysigii dheeraa ee aanu la yeelanay Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo aanu kaga hadlaynay shirkii magaalada London lagu soo gabagabeeyay bishan February 23 tan iyo kulankeena dambe waa Cali Xaraare oo dhamaantiinba idinkaga tagaya sida ayo nabad geliyo